runtii marka hore aad iyo aad ugu bogaadinayaa wasaaradda amniga gudaha doodan iyo kulankan weyn oo runtii aan aaminsanahay inuu kusoo aaday waqti aad iyo aad xasaasi u ah waqtigii loogu baahida badnaa uguna munaasibsanaa iyo mowduucii ay dadka Soomaaliyeed u baahnaayeen in ay ka wada hadlaan aad iyo aad ay u mahadsantihiin macali wasiir adiga iyo wasaaraddaada runtii maaragtay ciwaanka halkan ku yaala waa ciwaan ahmiyad weyn u leh dadka Soomaaliyeed oo u baahan inay ka wada hadlaan waxa ay wada leeyihiin iyo waxaas la wada leeyahay sidii la isugu qancin lahaa looga wada hadli lahaa kadibna looga wada shaqayn lahaa dabcan bulshada ayaa ah waxa loo adeegayo oo loo shaqaynayo oo dawladdu ay u diran tahay iyaga ayayna qasab tahay in lagu qanciyo shaqada loo hayo dareenkooda la dhageysto meelaha uu gaabisku ka jiro oo u baahan in la buuxiyana laga wada hadlo runtii waxa ugu weyn ee magaalada Muqdisho ka maqnaa muddo badan ee la tabay ma ahayn ciidan ma ahayn wasiiro ma ahayn taliyaal iyo dad madaxa iyo xafiisyo tiro badan waa is aqbalaad dawladda iyo dadkeedu ay is aqbalaan oo ay is ogolaadaan oo mas'uuliyadda qof kasta inta uu ku leeyahay uu ka qaato oo la wada garto in amniga iyo dawladnimadu ay tahay wax la wada leeyahay oo qofna uunan kaligeed ama qofna uunan la'aanteed noolaan karin marka wixii naga khaldan intaan ka wada hadalno oo ka doodno oo isku soo dhawaano oo si runa u wada hadalno oo iska saxno aan gacanta ku qabsano waxa magaalada Muqdisho ay tabaysay oo muddo dheer ka maqnaa waa intaas waxa meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ku najixeen oo magaalada caasimadda ka maqnaa waxay ila tahay inay doodan maaragtay tahay ahmiyadeedana waa muuqataa sida maanta madaxdii dawladda Soomaaliyeed iyo madaxdii bulshada Soomaaliyeed intuba muxuu ahaa ay u wada joogaan waxaan markaa rajaynaynaa in doodaha halkan ka dhici doona ay natiijo keenaan wax ka duwan in maaragtay xaaladii lagu sugnaa la galo in ay keenaan waxa ugu weyn oo ah wax badan waa la fahmi karaa waana la odorosi karaa waana la qiyaasi karaa waana la isku sheegi karaa laakiin ma la fulin karaa way ma la hirgelin karaa ficil ma loo bedeli karaa qofku waxa uu sheegayo gurigiisa iyo dukaankiisa iyo gaarigiisa ma ka hirgelin karaa oo ma ku dhiiran karaa inuu wax yar uu soo turgo oo run u bedelo oo niyadda uu gashado uu aamino inay tahay arrin mas'uuliyad wadareed dabcan dhaliilo qabi karaa waxa laga yaabaa ciidamadu inuu sida u baahnaa ahayn maamuladu wixii u baahan sidii loo baahnaa inaanay ahayn cadaaladii loo baahnaa inaanay jirin laakiin kulli waa in meel laga bilaaba marka qof kasta hadduu in soo durgo oo dawladdu in hagaajiso bulshaduna intii maaragtay space-ka ay jirta ay ka soo durugto halkaas inay tahay ayaan rajaynayaa meesha ay jirto annaga wasaarad ahaan runtii door muhiim ah ayaan arrintan ku leenahay oo ah wacyigelinta iyo abuurista iyo sahlidda afkaar furan in la isdhaafsado oo bulshada Soomaaliyeed loo ogolaado in la wada hadlo oo wax la isku sheego oo dawladnimadu aanay noqonin mid hal dhinac ka socoto oo dadka uun awaamiir siise mid dadka dhageysata oo fikradooda dhageysata oo wax ku dhista in ay noqoto marka labo runtii maaragtay shaqo oo waaweyn ayaan filanaynaa insha Allah tacaala oo aan wadnaa midii waa wacyigelinta tooska ah oo maaragtay iyadoo laga bilaabayo dhinaca diinta aan rajaynayna annaga iyo wasaaradda diinta iyo culimada muxuu ahaa Soomaaliyeed oo iskaashanayna in degmooyinka iyo xaafadaha magaalada Muqdisho ay ka bilaaban doonaan doodo diimeed maadaama hadda caqabada ugu weyn ee haysata nimanka nagu ah waxa ay isticmaalayaan ay tahay magacii diinta oo ay rabaan inay ka been sheegaan in maaragtay si run ah looga wada hadlo maxaa degmada ka jira maxaa laanta ka jira maxaa ciidamada ka dhex jira maxaa maxkamadaha ka jira maxaa diinta caqabad ku ah maxaan caqabad ku ahayn maxaa islaamku ogol yahay maxaan islaamku ogolayn in si sax looga wada hadlo waxaan kaloo diyaarinay runtii fariimo suugaanaysan oo aan ugu talagalnay hab suugaaneed in dareenka bulshada lagu cabiro oo maaragtay halkan waxa jooga Maareeye Barrow sida aan rajaynayo 17 degmo gobolka Banaadir insha Allah tacaala in degmo kasta يعني ظروفها وقارك كجرة سوقان كترجميسة
riwaayado ka tarjumayo gabayo ka tarjumayo in lagu soo bandhigo oo dadka loo dhawaado wada hadalkii bulshadana muxuu ahaa iyadana halkaas la geeyo dadka Soomaaliyeedna ay muxuu ahaa wanaagaas ku tartamaan marka waxaan rajaynaynaa in doodahan iyo shaqooyinka kale ee socda ee wasaaradaha kale badan ee dawladdu ay wadaan ay natiijo degdeg keenaan oo ka duwan xaaladii muxuu ahaa aan ku sugnayn annagoo dabcan dhinaca kale tan de ka faa'iideysanayna magaaladan caasimadda ah dalka Soomaaliya maanta waxa ka socda kacdoon weyn oo shacbi ah oo ay wadaan dad laga yaabo inaynan 1% oo adeeg dawladeed xataa uunan gaarin meelaha qaarkood oo aad aragteen dadka dagaalamaya waxay u badan yihiin 90% wax ka badan waa dadkii reer miyiga ahaa xoolo dhaqatadii iyo beeraleydii oo noloshoodii caadiga ahayd oo cidina aanay ka caawin jirin ay u diideen al-shabaab inay ku noolaadaan inay baarihi tacbadaan inay wadooyinkii maraan inay ceelal helaan ayaa loo diiday taasaa waxay ku qasabtay in ay marka gaaraan meel aanay dul qaadan karin oo ay go'aan ku gaaraan inay qoriga qaataan ay yiraahdaan maya dulmigan ma yeelin maxaa u maleynaysaa dadka magaalada Muqdisho jooga oo qof kasta ay u cabsi ku seexdo ninka ganacsadaha lacag laga qaadayo kan maqaayad fariista goorma lagu qarxina uu isleeyahay kii jaamacad aada goorma lagu dilaa uu isleeyahay oo qof kasta ama madaxa ha ahaado ama dhaqaalaha haysto ama faqri ha ahaado ama ha yaraado ama ha weynaade oo cabsi ku jiro goormaan sugaynaa kacdoonkii Muqdisho ee al-shabaab maya inaan niraahno cabsi intaan ka badan kuma jiri karno baadna intaan ka badan ma bixin karno goormaan intaas awoodeynaa al-shabaab yacni wiil yar oo 200-300 kiiloomitir jira inuu inta telefoon soo diro $1 milyan uu ku qaato inuu telefoon soo diray kaliya oo laga yaabo qofku inuu is weydiin waliba hadda 1 milyan bixisana aadan safe ahayn oo aadan aqoon baabuurka qaraxa soo socda meesha uu ku qarxi doono inuu wadada maraysa tahay oo nimankii milyanka ka qaatay intay ku soo waceen aan ku dhaynay iyo meelan qarax ka sameey rabnaa ka leexo wadadii adiga maadaama lacagtii bixisay ayna ku dhahaynin oo hadda jaajuus tahay oo qof u jaajuus ah tahay intay ku soo wacaan ayna ku dhaynay adu waan ala shaqaysaa maqaayad hebel aan rabnaa inaan qarxinay ka carar aan lagu lahayn marka midka lacagta bixiyay iyo kaan bixin iyo kan u jaajuusay iyo kaan u jaajuusin waa isku mid gabagabada marka waxay tahay hadalka inaan ku dheeraado mar rabe inaan doodahan inayna gaarsiiyaan dadka Muqdisho inay yiraahdaan maya cabsi maya al-shabaab maya baad intaan ka badan kuma hoos jiri karno inay dadka Muqdisho yiraahdaan